filimkana waxa uu ku bilaabanaya Augie Bowman oo ahna wiil 10 sano jir ah waxa uu ku dhashtay wajigiisa oo sidaas ah waxa uu noo sheegay inuu galay 27 qalin si uu u qurxiyo wajigiisa hadafkii laga lahay oo dhan waxay ahayd inuu neefsado uuna arki karo indhihiisa uuna maqli karana asagoo gisneen aaladaha wax lagu maqlo qalimada qaarna waxay ahaayeen kuwa qurxin ah ilaa markii dambe waalidiintiisa ay go'aansadeen inay geeyaan asagoo 10 sano jir ah iskuulka waxa uuna la kulmayaa maamulaha iskuulka Mr. Toshman kaasoo u keenay Augie 3 carruur ah si ay u baraan iskuulka oo dhan waana Will iyo Julial iyo Jarlia fuudeentana meeshas ayay kaga bilaabanaysaa waxaan ku bilaabaa Julial waxa uu ula hadlayaa si xun maalinkii xigay ayaa la gaaraya waxa uu iimaanaya iskuulka markii ugu horeysay waalidiintiisa oo dhan ayaana keenayso hooyadiisana waxa ay ku dhahaysaa waxa noqon doontaa mid fiican aabiisna waxa uu ku dhahayaa adigu waa ina wax kasto dhibaato ah ku soo wajahad inaad ka gudbi doontid mana tihidna keligaaga maalinkii koowaad markii uu ardayda soo dhex galan ardayda oo dhan waxa uu arkaya inay ka fogaanayso oo san jirin qof jecel inuu la dhaqmo asaga Juliarna muusan ka harin waxa uu ahaa mid ku jejeesay timihiisa ilaa maalinka waxbarashada ay ka dhamaatay markii ugu horeysay guriga tagayna waxa uu bilaabaya inuu jaratintiisa qolkiisa ayuu galaya wax uu ooyinaya xogaa yar ilaa markii dambe hooyadiis ay soo gashay ee ku dhahday sidee ahayd waxbarashada maanta asagna waxa uu ku dhahay aniga nafteedu waa nacay muxuuna wajigay sidaan ugu xun yahay dadka dhanna ma jecel inay la dhaqmaan ayna jecladaan iskuulka oo dhanna waxa uu iskugu jiraa mid aniga iga fogaanayo iyo mid icaynayo dadka dhanna waxay necab yihiin saa u aalo aabis iyo hooyadiisna waxa ay bilaabayaan inay xogaa yar ka qosolsiiyaan ilaa markii dambe uu ka go'aansaday inuu aado maalinkii labaad iskuulka waxa imaanay Sofia oo ahaydna walaashiis ka weyn asaga taasoo markasta Augie dhihi jirtay waxa tahay qoraxda oo kale qoyska intiisa kalena ay yihiin xidigeedii ku wareegaya qoraxda waxayna ahayd mid aad u jecel waxa ayna jeclad inta ihtimaam uu u baahan yahay in la mid ah bis ayadu waxa ay ka dareemaysaa xogaa yar ihtimaam la'aan waalidiinteeda xaggeeda mana aysan jecleen xataa inay ka ogaadaan xaaladeeda siday tahay waxay daneynayeen oo dhanna waxa uu ahay Augie oo kaliya xataa saaxiibadeeda Miranda taasoo ahaa jirtayna mar saaxiibadeeda ilaa markii dambe ay ka bilowday inay ka fogaato maxayl waxa ay yeelatay saaxiibo kale sidaas ayna fi ugu noolaatay kelinimo keligeeda ilaa markii dambe ay ka baratay Johnson oo ahayna mid isku fasal ay yihiin kaasoo had iyo jeer ku qancinaya inay ku soo biirto fanka iskuulka laga qabanayo waana nooc kamid ah noocyada sportska ugu dambeyntiina ayadana waa iska diiwaangelinaysaa waxay la kulmaysaa saaxiibadeedii hore ee Miranda oo ku jirtan isla kooxda waxa uu wada cadaanis in fi ay jeceshahay Johnston aan u laaban Augie ee uu ahaydna waqtigii ugu xumaa ee iskuulka uu joogo waana waqtiga bareega uusan ku dhex soco karin ardayda dhexdooda maxay ardayda markii ay soo fiiriyaan waxa ay la yaaban yihiin muuqaalkiisa waxa uu jecelahay had iyo jeer bareeg inuu dhamaado waxa la gaaraya xisada culumka waana xisada ugu jecel yahay Augie waxa uu keensadaa buundooyin fiican waana cagsiga Will halka Will uu ahayna mid uu ku dhaco oo kaliya maalin waxa la keenaya imtixaankadiisa Augie waxa uu caawinaya saaxiibkiis Will sidaas ayuu ku kasbanaya Augie saaxiibkii ugu horeeyay oo noloshiisa lahaado Willna waxa uu ku codsanaya markaas inuu ugu celiyo casharada guriga ay si wada jir ah u aadayaan hooyadiisna waxa ay u farxaysaa si aad ah kadib markii ay aragtay wiilkeeda saaxiibkiisii ugu horeeyay waxa la gaaraya ciida juudaanka waana ciida ugu jecel yahay Augie maxayl wajigooda dadka lama arko maalinkaas waxa uu sidaas ku awoodaya inuu qof kasta la hadlo maadaama aysan arkaynin wajigiisa waxa uu ahaa mid aad u faraxsan marka uu dhaxmarayo dadka dhexdooda fasalkiisa ayuu galaya waxa uu arkaya Will oo la fadhiya asxaabta kale waxa uu maqlaya asagoo dhahay Augie oo kale hada ahaa lahaydeen maalin kasta waxa gashnaa lahaydeen mask asagana waa uu naxaya markii uu arkay saaxiibkiis Will meesha uu ka difaaci lahay inuu caaynayo oo dhahayna Augie waa uu fulxin yahay macalinka maamulaha ayaana uu qasbay inaa la saaxiibo Augie waa uu ku murugoonaya wixii uu maqlay oo dhan maalinkii ugu farxadda badnaa ee noloshiisa oo ahayd maalinka juudaanka waxa ayna noqonaysaa maalinkii ugu foolxumaa ee soo mara asaga walaashiis ayaa arkaysa qolkeeda ay gelaysaa waxa ayna soo gashanaysaa dharka juudaanka qolka ay ugu soo galaysaa waxa ayna isku dayaysaa inay ka khafiifiso murugada uu ku jiro waxa uu ku dhahayaa waxaan maqlay saaxiibkayga kaliya ee aan ku lahaa iskuulka oo caaynayo waxaan jeclaan lahayba inaan gelin iskuulka oo baranina Will walaashiis waxa isku dayaysaa inay ilowsiiso waxa ayna ku dhahaysaa waxaan go'aansaday inaan ka qayb galo masraxiyada maanta la soo bandhigi doono anigana waxaan geli doonaa booska bedelka majaajilista maqan ee lahayd Miranda ayaan ahaan doonta booska muhiimka ah anigana marka milihii saaxiib waxa tahay adeeg saaxiibkayga kaliya ee marka israac waa israacayaan waxa ayna ka bixinaysaa qolkiisa waxa ayna wada ciidayaan ciida juudaanka maalinkii xigay ayaa la gaaraya Augie waxa uu iimaanaya iskuulka waxa uu u dhaqmaya Will si fiican waxa uu ku fikiraya Will markii hooyadiis ay ku qancinaysay in maamulaha uu ka ogolaaday inuu ardayda cusub baro iskuulka oo dhan walibana waxa kamid ahay Augie bilowgii horena waa uu diiday laakiin marka hooyadiis hadalkeed uu maqlay ayuu ogolaanaya Will waxa uu bilaabaya inuu Augie ugu sheekeeyo hooyadiis waxa uu ku dhahayaa waxaan ku jeclaaday afar shay midda koowaad wajigiisa oo saas u yaalo ayuu wuxuu ku kalsoon yahay naftiisa midda labaadna waxa uu ku fiican yahay waxbarashada sida maadada culumka midda saddexaadna waa wiil qosol badan oo dhowl cadeen badan midda afraadna waxa ay tahay marka koowaad adiga ayaa uu qasabtay inaan la saaxiibo asaga laakiin hadartan aniga ayaa jecel waana ardayga kaliya ee ii dhow ee dhigta fasalka waxa la gaaraya waqtiga bareega Augie waa uu diidaya inuu la fadhiisto Will kadib wixii uu ka maqlay maalinkii ciida juudaanka Augie waxa uu fadhinaya kaligiisa ilaa markii dambe samar ay u imaatay waxa ay ugu dhaaranaysaa in maamulaha iskuulka Mr. Toshman inuusan ku qasbin inay ayada la saaxiibto asaga waxa ay ku dhashay anigu waxa jecelahay saaxiib adiga camal inaa helo waxa ay noqonaya saaxiibad sida Justin iyo Fia ay iskugu soo dhow yihiin ee isku jecel yihiin waxa arkaysa Miranda oo ahaydna saaxiibadeedii hore taasoo u
dhagaystay saaxiibadeedii hore ee Fia waxayna ogaanaysaa qaladaadkeeda iyo sababta ay ugu tagtay hadirtaan ayna dareemaysaa in Fia ay u ahayd saaxiibad wax ka badan oo ahaydna walaasheeda saasay tahayna marna waxay u ahayd qoyskeeda oo kale halka Fia walaalkeed Ogi uu ahayna mid ka qosolsiin jiray oo ka farxin jiray Miranda waxa ay wacaysaa Ogi kadib markii ay soo xasuustay waxa ayna ku dhahaysaa u sheeg walaasha Fia inaa u xiisay oo weliba rabo inaa la hadlo waxaa la gaaraya maalinka ciida Ogina waxa uu la dheelay oo la faraxsanayna Summer waxa uu ka fogaan jiray had iyo jeer inuu arko weel Summer ayuu tagaya wax uu weydiinaa sababta Ogi oo markasta ugu fogaado wuxuu ku dhahaysaa Ogi waxa uu ahay maalinka ciida qofkii gishnaa maskiga madoobay way ka tagaysaa si uu u fakiro uu u soo xasuusto maalinkaas waxa dhacay asagana waxa uu bilaabaya inuu fakiro uu xasuustana maalinkaas waxa uu dhahay iyo qof watay inuu jiro mask madow ah isla waqtigaasna macluumaadka culumku waxa ay u kala qaybinaysaa ardayda gurubyo si ay su'aalaha ugu jawaabaan group kasta mar weelna waxa uu agfidhiyo Ogi saas ayayna ku noqonayaan hal group markii ay xiisada dhamaatayna Julian waxa uu imaanaya weel waxa uu weydiinaya sidee ugu raali noqotay in uu groupka kugula jiro wiil saas wajigiisa uu xun yahay taasna waxa ay ka dhigaysaa weel inuu kula dagaal iskuulka dhexdiisa waliba ardayda u jeedaan oo kamid yahayna Ogi guriga ayuu tagaya waxa uu weel kala hadlaya ciyaar uu dheelay oo online ahayd weelna waxa uu dhahay anigu waa ka qaldanay maalinkii aan waxaas ku dhahayay waxaana rabaa inaan saaxiibo mar kale noqono Ogina waa uu aqbalaya midaas waxa la gaaraya maalinkii iskuulka lagu soo bandhigi lahaa masraxiyada waxaana kamid ahay dadkii soo bandhigaya Justin iyo Fia ehelkeedu oo dhanna waa imaanaya si ay u dhiirigeliyaan gabartooda laakiin waxa arkaysa Miranda waxa ayna go'aansanaysaa inay ka baxdo jiliinka waxa ayna u deynaysaa saaxiibadeeda hore Fia ayaa lagu wareejinaya doorkaas waxa ayna ahayd mid cabsanayso waxa ayna fuulaysaa masrax waliba ayadoo kala blabeynayso waxa ayna dhigaysaa jiliinkii ugu fiicnaa ee Ebe taageerayaashii soo xaadiray oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay u sacbiyaan waalidiinteedana waxay ahaayeen kuwa sugaya kadib markii ay dhamaatay xafladda waxayna rabeen inay ku dhahaan jiliinkaaga waxa uu ahay mid fiican hab ayna siinayaan Justin iyo Miranda ayana ka soo qaybgalay xaflad yar ay dhiganayaan waxa la gaaraya bandhiga maadada culumka arday kastana waxa ay soo dhigayaan fikradooda iyo mashruucooda Ogi iyo weel ayana ku guulaysanaya qaybta ugu horeysa ee kaalinta waxaana guuldareysanaya Julian oo ahayna mid nacib Ogi markastana fuudeyn jiray mar xataa waxa uu subaray sawirkiisa oo foolxumo badan waxa uu siinaya asag waxa uu ahay mid ka masax sawirkiisa sawirka fasalka dhan ay wada galeen waxa uu dhahaya ma ahan mid la ogol yahay wajiyasha dadka xun hadalkaasna waxa uu gaaraya maamulaha iskuulka waxaana loo yeeraya ehelkiisa markii arkaana wixii uu sameeyay waxa lagu xukumaya in uu ka baxo iskuulka oo dhan saas idahana waxa laga ganaxaya in iskuulka dalxiiskiisa uusan aadi karin iskuulka ayaan sidaas loogu wareejinaya kadib markii uu galadeen waalidiintiisa waxa la gaaraya dalxiiska sanadka dhamaadkiisa fasaxyada Ogi iyo weelna waxay ahaayeen saaxiibo isku dhow waxa ayna wadaagayeen farxadooda fasaxa iyo dalxiiskan waxa uu soo dhamaanaya si fiican maalinkaas kadibna waxa la gaaraya maalinkii qalinjabinta hooyadiis ayuuna u mahad celinaya markii ugu horeysay maxay ayada ayaa ku madax adeegtay inuu galo iskuulka ayadana waxa ay ku dhays aniga waan hubay in adiga ay jeceshahay oo maraysidna dhibaato kasta si aad u guulaysatid waxa istaagaya maamulaha iskuulka Mr. Tushman si uu u sheego ardaygii ku guulaystay abaalmarinta waxaana helay abaalmarinta ardayga ugu dadaalka badan oo ku sareeyay maadooyinka dhan waxa uu dhahay awoodda ma ahan in adiga ahaatid qof qurxoon oo awood badan waana in awood u isticmaashid meesha saxan waana in dadka si fiican ula dhaqantid ardayga sanadkan ku guulaystayna abaalmarinta waa ardaygii awooday inuu ka gudbo dhibaatada soo wajahday oo dhan waana ardayga la dhaho Ogi Balman ardayda oo dhan ayaan u sacbinaysa ehelkiisa oo dhan waxay ahaayeen kuwa faraxsan waa ayna ku faanayeen waxa uu soo fuulaya masrax asagoo faraxsan waxa uu fiirinaya dhammaan dadkii ku caawiyay inuu soo gaaro heerkan sida hooyadiis oo wiligeed ay isku dhiibin dhibaato kasta ay soo wajahdo iyo aabiis oo kaasu ahayna markasta mid ka qosolsiyo oo jecelne ee walaashiis Fia oo ahaydna markasta dhinaciisa iyo asxaabtiisa weel iyo Summer kuwaasoo ku caawiyay inuu sii faraxsanaado iyo macallimiintii waxbarashada ku caawin jiray oo jecelaayne kuwaasoo dhan waxa uu aaminay inay yihiin kuwa abaalmarinta la mutaystay haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloobin inaad like saartid oo share garaysid sidoo kalena YouTube si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha asoo dhigayno filimkana magaciisa waxa lahaa Wonder waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada soo socdo ha iloobin inaad YouTube-keen ku soo birtiin maca salaama